waxaa loo yaqaanay boqorada Catwalk oo ah raadraac ku socda shirkadda model waxay ahayd supermodel astaan dhaqameed iyo haweeney ganacsato ah sidoo kalena ka shaqaysa bini'aadanimada iman waa gabar Soomaaliyeed oo ku dhalatay caasimadda Soomaaliya Muqdisho sanadkii 1955 sanadkii 1975 iman waxaa daafuray sawir qaada Mareykan ah oo lagu magacaabo Peter Bed oo la ashqaraaray quruxdeeda wuxuuna ku qanciyay inay sii wado xirfadda modelka iman waxay si degdeg ah hormuud ugu noqotay modelka adduunka oo dhan waxayna noqotay mid ka mid ah fashionistayaasha loogu jecelka badan yahay sanadkii 1970 iyo 1980 sidoo kale waxay ahayd supermodelkii ugu horeeyay ee Afrikaan ah waxayna wadada u furtay jiilalka mustaqbalka modelka noqonayay sanadkii 1994 iman waxay bilowday ganacsigeeda oo ahaa cosmeticska iyadoo diiradda saaraysa qurxinta dumarka midabka leh ganacsigaas waxa uu ahaa guul weyn oo ilaa maanta shaqeeya dhaxalka iman wuxuu ku nool yahay shirkadaha modelka dunida waa tusaale ku dayasho iyo dhiirigelinba u ah dad aan tiro lahayn oo adduunka ku nool